qodobadii ka soo baxay shirkii Garowe maxaad ku dhalishay shirkaasi walaal shirka gudahanatu waa soo dhaweynaya wana bogaadinaya in madaxda Soomaaliyeed ay marwada fustaan dadka aysan ka taliyaan laakiin shirka waxaan ku dhaliilay qodobada ku saabsan maamul sameynta gobolada dhexe ee shirka ka soo baxay waxaan u arkaa inay yihiin qodobo dastuurka ka soo horjeedo maxay dastuurka Soomaaliyeed qodobadiisa 49 kuntii waxay dhigayaan in بالمكان كبار السماعة لبلبان قبل يكبرن يذكر عن الديانة مع قبر الجبلية ولا سمينة ما السوق أو قرن تحت قبل يبرع إسراع يمجد لا دراد وحنوعك ولا الشركة جلوة ولا السوق كسر الجيرة فرنترون كوع مع مسلمين قبل بدأ من عبد الكريم شرعي حكومة دا ومدحونها كي هي حسن شيخ محمود وحد كاهد وزير مرة رياضة هايد ومدحونها وهايد مركز كور يماني سوقانه ومدحونها دلك صحيحاي magaceed ku hadlaysa walaal anigu waxaan ahay muwaadin ah waxaan kaloo ahay nin ka soo jeeda deegaanada gobolada dhexe danaha iyo masaalixda gobolada dhexe inaan ka hadlayo dareenka dadka waxaan mareenay in xaq aan u leeyahay taana macnaheedu ma aha inaan madaxweynaha ka soo horjeedo macnaheedu ma aha soo horjeedo qofka muwaadinka ah ra'yigiisa iyo fikirkiisa ayuu sheegi karaa gaar ahaan in siyaasi ah oo murashax oo tartamaya nahay danaha iyo dareenka dadkiisa inaan cabiro xaq baan u leeyahay waxa kaloo la isweydiinayaa oo adiga lagu tiriyaa inaad ka mid tahay dadka aadka ugu dhow madaxweynaha marka maanta heshiiskaasi uu ku soo saxiixay asagoo ah mas'uulkii ugu sareeya dalka inaad ka hortimaado ma la soran karaa in siyaasadda aad ku kala fogaateen anigu ra'yiga siyaasadeed iyo fikirkiisa siyaasadeed ayaan cabiray nimo ugu darnaan maayo nimo ugu roonaan maayo waxaan ka hadlayaa dadka dareenkooda anigu aan matalayo oo maaragtay qabo inaan mas'uuliyadoodii magacooda aan qaado taana macnaheedu ma aha inaan madaxweynaha ama kala tagnay ama ornahay ama mifkinahay waa arrin siyaasadeed iyo ajando siyaasadeed jira ayaan ka hadlayaa xataa taan macnaheedu ma aha nin ka soo horjeeda inaan ahay deegaanada Puntland iyo danahooda iyo masaalixdooda iyo deganaashadooda ka soo horjeeda inaan ahay haweenka ma hadda marka halka maxaad u aragtaa halka waxaan markaa in dadka walaalaha ah ee xuquuqdooda mid degan ayaga rabitaankooda loo daayo oo rabitaankooda aan la joojin haddii ay rabaan inay ka mid noqdaan maamulka intii loo sameeyo inaan rabitaankooda la caburi